dugsiyada al irshaad schools magacaygu waa axmed maxamed aadan arday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalinteena saddexaad ee habka online-ka waxaynu ku jirnaa weli chapter 4 miishar matig baynu ku jirnaa cabiraadihii horeynu soo dhiganay qaxitaankii iyo maxay ahaydey waay waxaynu bilaabaynaa perimeter of rectangle wareega leydiga aan square iyo laba jibaaranaha maanta waxaan dhiganaa insha allah perimeter of rectangle and square wareega perimeter waa wareega insha allah rectangle waa leydi af Soomaali and square waa laba jibaarane waxaan bilaabaynaa insha allah wareega leydiga iyo laba jibaaranaha waxaynu hore u soo dhiganay markii la soo saariyo wareega laba jibaarane ama maxay ahaydey wareega leydi marka waxaanu soo dhiganay markii la isu geeyay afarta side haddaynu koona rectangle waa maxay rectangle waxa weeye waa shaxan ama waa shape waa shaxan leh afar side and four angles then opposite sides waa equal oo labadaas side way is leeyihiin labadaas side way is leeyihiin imka sawirdeena ka soo qaad sawirdeena waxay leedahay dherer iyo ballac dhererkaas uu leeyahay ballacana uu leeyahay kaas loo yaqaan rectangle waa maxay haddii labada dhinac iska soo horjeeda is leeyihiin waxa loo yaqaanaa rectangle baa loo yaqaanaa ka square haddaynu nimaadno square ku waxa weeye isaga laftiisu rectangle ku la mid yahay waa rectangle weeyaan laakiin maxaa uu ka duwan yahay isaga all sides waa equal afarta side buu is leeyihiin oo hadduu kali 4 yahay kana waa 4 kana waa 4 kana waa 4 kan laakiin hadduu kani 10 yahay kana waa 10 de uu ka soo horjeeda hadduu kani 5 yahay kana waa 5 weeyaan isna waa rectangle waa yahay waxaan maanta dhiganaa insha Allah marka aynu hadii la yiraahdo marka la isticmaalayo formulooyinka dhiganaa marka la isticmaalayo formulooyinka rectangle u kaale rectangle waa maxay perimeter-ka waxa lagu helaa laba lagu dhuftay bracket L plus W waa length-ka oo loo geeyay width-ka perimeter-ku muxuu noqonayaa marka waxa loo soo kaabiyaa P af Soomaali waa wareeg af Soomaali waa wareeg weeyaan af Soomaali waa wareeg length waxa loo soo kaabiyaa L length-na af Soomaali waa dherer weeyaan width waxa loo soo kaabiyaa W af Soomaali waa ballac weeyaan dan length waa dhinaca dheer weeyaan width-kuna waa dhinaca weeyaan waa yahay perimeter of rectangle marka maxaa lagu helaa laba lagu dhuftay L plus W ayaa lagu helaa waxaan isticmaalaa formulada gaaba la isticmaalayaa perimeter waxa loo soo gaabiyaa P baa loo soo gaabiyaa length-ka waxa loo soo gaabiyaa L baa loo soo gaabiyaa width-kana waxa loo soo gaabiyaa W baa loo soo gaabiyaa dan shapes-ki waa kan kaas waa L kaasina waa L ka soo horjeeda kana waa W kaasina waa W waa width marka la soo saarayo marka perimeter-ka waxaanu soo dhiganay marka waxa la sugeynay shalay maalintii hore oo kale casharkeenu gudub wuxuu ahaa waxa la sugeynayaa side-ka laakiin maanta waxaan isticmaalnaa formuladan qaacidadan isticmaalnaa haddii lagu weydiiyo wareega maxay ahaydey rectangle waxaad isticmaalaysaa this formula perimeter-ka waxa lagu helaa laba lagu dhuftay L plus W square-ka isagoo kaalay square-ku waxaan all sides waa equal afarta side-ba way is leeyihiin marka hadduu kani 4 yahay kana 4 yahay kana 4 yahay kana waa 4 dhammaan way is leeyihiin waxaan hore soo dhigay markii la isku wada geenayay imika waxaan isticmaalnaa formuladii marka la isticmaalayo formulada perimeter-ka waxa lagu helaa afar lagu dhuftay side yani 4 times s yani waa afartii dhinac baa lagu dhuftanayaa maxay ahayd afartan afraad mid ka soo qaado waxaanu sameynaa wax ku filan dhinaciide 4 times s
يعني waa intaaba haddii lagu soo saar wareegga laba jibaarane ama perimeter of square waxaad leedahay afar ku dhufo side-kii lagu siiyey oo imika waxa la siin karaa one number baa la siin karaa waxa la siin karaa hal side oo kale la siin karaa hal side ayaa la siin karaa examples ka oo kale afar daa example lagu siinaa labana waa rectangle labana waa square waxaan isticmaalaa formulooyinka qaacida ka isticmaalaa insha Allah su'aasha ugu waxa lagu markaa found the perimeter of the following figures waxa soo saartaa wareegga shaxanadan horeynu soo sheegnay de wareeg wuxuu ka hadlo wareeg waa dhisna isku xiran maxay shapes weeyaan waa fogaanta ku xiran shapeska deedna waxa la leeyahay solution example ka koowaad u kaale solution waa first weeyaan waxa sawirkan markaa waa maxay waa rectangle waana taqaanaa haddii lagu siiyo laba side oo kala gaara shaxankaaguna uu noocaa yahay uu yahay rectangle haddii yahay shaxankaagu oo laba side oo kala gaara lagu siiyo waxaa isticmaalaysaa this formula waxaa la isticmaalayaa formula baa la isticmaalayaa perimeterku wuxuu leeyahay laba lagu dhuftay L plus W tan waxaan leenahay perimeterku wuxuu leeyahay laba lagu dhuftay he laba lagu dhuftay waa side labadii waxay u taagayeen labadii side kale ay u taagayeen haye kan waa legadki weeyaan L baa loo soo gaabiyaa kana waa widthki weeyaan waxa loo soo gaabiyaa W tan perimeterku wuxuu loo leeyahay laba lagu dhuftay legadki maxaynu haysanaa 8 cm ku bedelo 8 cm oo loo geeyo widthki maxaynu haysanaa 6 cm ku bedelo tan waxa la isticmaalo xisaabtan waa operation waxa la isticmaalaa formulada ahayd bonus marka waxaan ku hornaa qaybta bracketka waxaan sugayaan labadan ilaa labada aynu sugayno tuwa ku dhafkarna insha Allah marka labada sugayno qoyska ayaa ka baxaya tan waxa leenahay perimeterku wuxuu noo leeyahay laba lagu dhuftay times oo leenahay bracket wuxuu waa times labada marka ay sugayso 8 plus 6 waa 14 cm tan perimeterku wuxuu noo leeyahay labada isku dhufo markaa waa 28 cm waxaan hore soo dhiganay labadan sugo waa 14 kana sugo waa 14 isku wada geystay 20 deedna waxa la isticmaalaa formuladan deedna marka waxa soo dhigatay iyadoo la isku wada geenayo u kaalay biida isna waa rectangle lagad oo lagu dhuftay width weeyaan solution de perimeterka maxaa lagu helaa waxa lagu helaa laba lagu dhuftay L plus W tan perimeterku wuxuu noo leeyahay laba lagu dhuftay legadkii maxaynu haysanaa 20 cm waa 20 cm oo loo geeyay widthkiina waa imisa waa 10 cm tan perimeterku wuxuu noo leeyahay laba lagu dhuftay marka labadana sugayno qoyska ayaa ka baxaya deedna 20 plus 10 waa imisa equal 30 cm tan perimeterku wuxuu noo leeyahay isku dhufo labadan waa 60 cm wareegga shaxankan waa 60 cm weeyaan haddaynu eegno habkeenii hore soo dhignay maalintii hore waxa weeye 20 iyo 20 waa 40 10 iyo 10 waa 20 isku wada gee waa plus 60 marka maanta waxaan dhiganaa insha Allah sida formulada loo isticmaalo insha Allah diilala halka waxaan ka baxnay maxay rectangle given ka baxnay waxaan u geyn la kon waa square isaga waxa lagu yaqaanaa waxa lagu siin karaa one side ama waxa lagu siin karaa laba side oo isku mid ah waxa lagu siin karaa afar side oo isku mid ah the rectangle square isagu afarta shaxbo is leeyihiin imika rectangle haddii shil glasskeena daaqadana kamida sawirtana kamida miiskana kamida kaabadana ku taagana kamida buugaaga exercise notebookaaga kamida textbooka kamida waxa soo wada rectangle weeyaan waay square u kaalay anigu square glasskeena kale waxaan ku arkaa maxay ahaydey baalka loo yaqaano switchka waay switchkaas rectangle waa after misleegin waay isaguna formula leeyahay markaa waxa lagu soo saar wareegga laba jibaarahan awsaan waxa loo yaqaan rectangle-ga square waxa loo yaqaan laba jibaaran ee Soomaaliya perimeterka maxaa lagu helaa markaa square-ga waa afar lagu dhuftay s yani afardii dhinac 4 2 3 afardii side ma ku dhufaan lambarkii la siiyay tan waxa leenahay perimeterku wuxuu noo leeyahay
afar lagu dhuftay 5 centimeter tan perimeterku wuxuu loo leeyahay isku dhufadee waa 20 centimeter 20 centimeter haddaynu dano isku karnaa dee si hore soo dhignaba waa 5 loo geeyay 5 loo geeyay 5 loo geeyay 5 loo geeyay waa 20 imikana waa 20 waa same answer weeyaan marka haddaad isu geyso sides oo dhan iyo haddaad formulas baasho waa the same answer weeyaan another example ka oo kale u dambeeya waxa la soo saar perimeter of the square why perimeterka maxaa lagu yeelaa markaa waxa lagu yeelaa 4 times s tan perimeterku wuxuu leeyahay afar lagu dhuftay saarkii maxay leesanaa 7 centimeter ku bedelo tan perimeterku wuxuu noo leeyahay isku dhufadooda waa 28 centimeter haddaynu kor noqono maxaa yahay formula of square-gu perimeterku waxa la 4 lagu dhuftay s perimeterka waxa loo soo gaabiyaa p sideska waxa loo soo gaabiyaa s ayaa loo soo gaabiyaa s ayaa loo soo gaabiyaa haddaynu sheegno rectangle ku noqdo Soomaali rectangle af Soomaali waxa la lady weyn af Soomaali why square haddaynu u limaadno isaguna waxa weeyi waa laba jibaarane and askeenu maanta marka waxaan ku baranay marka la soo saarayo perimeter of rectangle ama perimeter of square ee la isticmaalayo formulooyinka qaabkaas lagu shaqeynaya pageska haddaynu eegno casharkeena maanta waa page 123 iyo page 124 casharkeena maanta insha Allah intaas ayuu inoogu eegay waxaan laga doonayaa ardayow qaacidooyinka xifdida labada qaacido waana xifdidaa waana taqaanaa rectangle-ga waana taqaanaa iyo square-ka haddii la muxuu noqonayaa perimeter of square formuladeedu waana tira perimeterka waxa lagu helaa laba lagu dhuftay l plus w perimeter of square wuxuu noqonayaa laba lagu perimeterka waxa lagu helaa 4 times s marka labada formulo haddaan xifdisanayn oo lagu raa systemka qaacida isticmaal kuwa kaba shaqeyn karaysid marka waa qaacidooyinka ka xifdida ayaa laga doonayaa ardayo page kana waa aniga sheegno page 123 iyo page 124 ayuu maanta casharkeenu ku saabsan insha Allah intaas buu ka kartaa hadii la hayraado marka casharka si fiican loo akhriyo insha Allah wixii exercise ku jirana ha laga shaqeeyo hadii la hayraa casharka marka maanta halkaas uu nagu joogayaa hala runtii la soo akhriyo casharada aad loo soo akhriyo waqtiga laga faa'iideystay insha Allah wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dugsiyada al irshaad schools